ma ahan balli ama war biyo degeen ah balse waa mid ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar. biyahan waa noo lagu xiri oo kaan qarash inay ku aruursadaan oo dadka masaakiintana waa barakaceen xaafadda wax ku nool ma leh. maamadan waxa ay ka cabanaysaa biyaha roobka waana raxmadii uu eeba keenay nimco walbiyana nusqaankeeda ay leedahay. waxaana iyada iyo qaar kale cod dheer ay fariin uga dirayaan maamulka gobolka ka degmada Jowhar iyo maamulka Hirshabeelle. wiligaan dhibaatada ma arka anaga maxamed siyaada soo joogi jiray maxamed dheero hogaamiye kooxeed aa soo joogi jiray dhibaatadan wiligaayna ma arka anaga biyahan waa noo lagu xiri oo kaan qarash inay ku aruursadaan oo dadka masaakiintana waa barakaceen xaafadda wax ku nool ma leh. dadka waa dhamaadeen wax dhinta iyo wax biyo qaxiyo ay noqdeenba meel ay tagaan lama bahaayaba waxa ugu baaqa dhibaatada in shacabka laga qorqaado. hogaamiye kooxeed aa soo joogi maxamed dheero hogaamiye kooxeed wiligeed dhibaatadan lagu ma arkin. إن الرب بيبا كجرنا إن أنا لقسو غرغارنا برشلة سوماليات إن أنا لقسو غربان بيا برشلة هبينك سوماليات أورك أكو جراي أفانولة هو يودينكا هاي maamul waa ka jira leeyahay maamulna ma ka jiro magarad intii shiimaaday ilaa faanoola geeskiisa meeshii oo isbitaalka eed halaas biyaha isku xiran yihiin ilaa xalay ilaa waagan inta halaan biyo dhumisahayna maamulna kama jiro hadday maamul ka jiro bannaan baa dhulkan waa wax baa laga qaban jiray maxamed dheer wax buu ka qaban jiray maxamed siyaad wax buu ka qaban jiray haddana wax baa naga kala qabanayo ma leh roobkii oo xal ilaa shalay subax do'ayay fasahaadkan ayuu keenay alxamdulilaahi rabbil caalamiin shukru ma hatorta ilaahay yaa iskale ilaahay aanu ku mahdinaynaa ilaahaanu ku shukrinaynaa laakiin waxa idinka codsahaynaa insha Allah taala ina kaalmo xoogan aad ka qaadatiin iyo kaalin oo roobka sanad kasta do'ayna macnaha dhibaatooyinka iyo fasahaadkan oo keenaa xaafadda aan deganahayna faanool waaye god waaye roob dawdo waa go'a hadduu ilaahay idin waxaan jecelnahay maamulka inuu macnaha wax nooga la qabto insha Allah taala biidmillahi alkariim. orku biyaan ugu jiro labada qol meel wax ku karsana male ciyaalkii waxaan siisana malaha dooriyaalkii waa naga daadaadeen meel dab ku shidana male cunto meelan ka kaasana male meelan ka shaqaysana male meel shaqo ugu aadna ma haysano anaga soo gaaro maamulka anaga soo gaaraano dhawaataana hayso meel afka siina male meel oo macnaha oo wax ka kaasana male saara biyo oo dhex jira lugeeyga xataa biyo ku dhex jiro xal arsaaq ma cunug meel wax ku karsana male ana u sheegay maamulka Hirshabeelle inaan dhibaato ku jirno oo aad ugu jirno xali ilaa shalay roobkii dhax galnay dhumisan hayay xaafadan ayaan deganahay cayalkan aniga hal sariir ku tubnaa xali marka dhibaato aad iyo aad aan ku jirnaay maamulka waxaan ugu baaqayaa in si degdeg naaga soo gaaraan. gudoomiyaha xaafadda Kulmis Yaxya Sheekh ayaa ka warbixiyay xaaladda xaafadda Kulmis. mid labaad alxamdulillah ilaaha ma hadle barwaaqada nasi xali waxa shalay iyo xali waxa da'ay roob waan dhihi karo roob weyn oo khasaaro badan geystay afarta xaafadood ee ka tirsan degmada Jowhar qaasatan anigoo ah gudoomiyaha xaafadda Kulmis markaan saaki soo baxayan soo kormeeray meel badan iyo guriyo badan ee biyo ku jiraan dad badan baa xali ku bariyay biyo dhaxdooda ilaa haddana waxaan ku jirnaa shaqo waa meelaha leemanka biyaha ay ka baxayaan toosanayna maxaa qorshe oo idinkaga degan wadooyinka waaweyn ee xaafadda Kulmis ee fiisanaya biyaha haddaba shaqa laga hayaa oo meelo badan oo biyaha laga bixinayo waxaan digay mashquul ka yarnaa meel ku aadan ceelkii weynaa ee Jarmalka hore meesha matooran biyaha uu bixinayna doollar yiraahdo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Cumar Maxamed Cumar Gaabow ayaa yiri waxaan dhihi lahayn bulshadii iyo maamulka degmada iyo kan gobolkaba
inay isaga kaashadaan sidii biyahaas magaalada looga saari lahaa sidii hore loogu yaqiinayo in matooro la saaro goobaha loogu talagalay in matoorada la saaro kadibna dadka shacabka ee biyaha lagu bixiyo intaas ayaan ku guwaawi lahay annagana inta karaankayna ee kulay waa ku dadaalaynaa oo aan la shaqaynaynaa gudoomiyaasha xaafadaha iyo gobolka iyo degmadaba ka xildhibaan ahaan kalama liitaan afarta xaafadood ee magaalada Jowhar xaafad walba cabashadeeda iyo tabasho gooni ay qabtaa raxmadii keenay eeba ayayna ka tabanayaan waxaana ay dhaliil u jeediyeen maamulka Hirshabeelle kan degmada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe maxamed yaasiin mahdi maxamed ee qalfa raadiyaha iyo telefishinka dalsan Jowhar